وهاجاج sanadihii ugu dambeeyay tirada dadka ka howlgala warbaahinta bulshada ayaa xargaha goosatay baraha bulshada waxa ay noqdeen goobo si joogto ah loogu isticmaalo wada xiriirka isdhexgalka bulshada iyo gudbinta fikradaha gaarka ah sida siyaasadda iyo arrimaha bulshada hadaba waxa la isweydiinayaa mas'uuliyad ceenkay ah baa dadka adeegsada baraha bulshada gaar ahaan kuwa caanka ah ka saaran inay ilaaliyaan anshaxa iyo waliba xuquuqda daawadaha barnaamijka dooda ayaanu inahaasi ku eegi doonaa waxa marti igu ah Shiina Culay oo kamid ah dadka baraha bulshada sida weyn u adeegsada oo ku sugan magaalada Dortmund ee dalka Jarmalka waxa stuudiyahana ila joogta Faiza Awil oo halkan ila joogta iyaduna waxa ay si weyn u adeegsataa baraha bulshada gaar ahaan Facebook labadiinaba soo dhawaada aad iyo aad u mahadsanina barnaamijka soo qayb gashaan Shiina Culay aan ku bilaabo Shiina Axmed Culay waxaad kamid tahay dadka baraha bulshada sida weyn u adeegsada ma jiraan xuquuqo mas'uuliyado iyo anshax ku xakameeya marka aad dadka la hadlayso waa jiraan waxa la socotaa Facebook iyo YouTube kaba inay leeyihiin shirkadahaas marka aad isticmaalayso inay iyaga laftigoodu leeyihiin siyaasad kaaga baahan inaad ku xadgudbin oo maxaan ku raahdaa hadaa ku xadgudbo aadan adeegooda isticmaali karin iyo mas'uuliyado gaar oo aniga isaaran kuwaas oo ay kamid tahay inaan maartay dadka war wanaagsan soo gudbiyo oo waxyaabo maxaan ku rahay dadka kala dilaya ama dhibaato ku aanan u keenin marka mas'uuliyad weyn baa saaran waana aqoonsanahay mas'uuliyadda Shiina laakiin sida aad ogtahay shirkadaha aad isticmaasho barahooda af Soomaali kuma hadlaan waqti dheer ay qaadanaysaa inay soo qabtaan waxyaabaha hoose ee aad tirahdaan dadka Soomaalidu dhibsanayaan ama fahmayaan waa runtaa weeye laakiin markaan barta bulshada ay dad badan iga xiran yihiin muddo badan iyo waqti badan aan geliyay waxa ku khasbanahay inaan ilaaliyo hadii aan ilaalin waayo kulay maalin baa laga daba imanaya taasina waxay keenaysaa in la xiro sidoo kale aakhiradeeda iyo sharafteyda inta adduunyada joogo labadaba inaan ilaaliyo baa waxay ka muhiimsan tahay inaan shirkadaha kale maxaan ku rahaa iyaga iska dhaadhiciyo Shiina Culay aad iyo aad u mahadsan tahay Faiza hadii aan adiga ku imaado sidaad u aragtaa hadalka Shiina والله هرت شينا علي أنا فيديوهات بدن يسقوا لي هي مان عادوا داون لكن واحد عدي فيديوهات ود بيو عن داودي مركنا interest وحن كنا قضي إن إيجو باليوتيوب كاستعماله إن كان يا فيسبوك كيسانو أركو وحن لشيء جنا رويهين كنتي واحد وفول حنبان أركي إن كانوا سمعنيه شينا علي هدوي مقليه كلي وحوي dadku kalna way dad badan oo kalna way arkayaan waxaad u maleeysaa markuu social media soo galay inuu ugu tala galay inuu dadka attack garayo oo kale especially dumarka oo kale yani marka qaar kood dad aragtid waxyaalaha afkiisa ka soo baxaya hadii lagu tarjumi lahaa luqadda Ingiriiska oo kale yani wax weyn baa runtii social media iska bedeli lahaa marka inuu wala jooga waa weydiin doonaa maxaa kamid ah oo adigu wacay ama dad badan kale way aqoon way ogyihiin hadda labadii video I think about waxay ahayd maybe lix week ama wax ka sii horeeyay kumid ahayd gabadhii fanaanada caanka ah Hani UK oo kale uu ku maaratay uu ku cambaareynayo kale wax aad runtii u foolxum oo gabar Soomaaliyeed lagu yiraahdo bay ahayd runtii oo dad badan ay ka naxeen especially markay gabadhu tahay hooyo oo kale marka Shiina Culay runtii waxa weeyaan waa dadka farakutiriska ah ee imikaad u maleeshada inuu social media استعمالي وسخل دقدقة كويدية هذه أنت أنا شيء نقول حقوق جارم يا قبلها سينيسها مزدت كرم بعد ولا جدا. ما وحوي حقوق جارم السينية قبلها لكن وحوي السوشيال ميديا وحلوقه طلق لي إن لقى فايدة. البنفيت بدن بقوله السوشيال ميديا ده سيابا بدن بلقى فايدة سنكرة بزنس كلقى فايدة سنكرة مركا قاق وصعد لك إن كاسر أدبو شينا فايزة وحلا هذا دبعتهم بعد نقص كرديسي أفلقادو بنفيت كامها هاينو يوح فايدة له. waxa weeye waa dhici kartaa mararka qaarkood inay hadalladayda ay wax ka khaldamaan BBC doo kale taa wax ka khaldami karaan qofku markuu yahay maxaa ku lahaa qof 24 saac hadlaya hadalla khalada way ka iman karaan laakiin anu waxaan aaminsanahay boqolkiiba 90 waxyaabaha halka la soo fariisto inay yihiin wax sax ah haday dhacdo mararka qaarkood inaan hadalla khalada ama barnaamijyo aanu arkay marka inay khaldan yihiin oo dadka kale dadka waxaan qiimeeyaa falceliska ka bixiyaan aan arko dadku inay ka bixiyeen falcelis ah war halka waa ku siibatay waa ka daba tagaa waxaan ku dadaalaa inaan saxo marka walaashay waxaan u maleynayaa hal video iyo laba video oo aysan iyadu jeclaysan inay soo daawatay boqolaal ama kumaanku video iyo barnaamijyo aan leeyahay meesha ku jira inay soo wada daawataan jeclaan waa gartay waa ma santahay Faizo hadii aan adiga ku imaado adiga waxaad
barnaamij baad ka samaysaa facebooka oo guurka ah soo lama oran karo barnaamijkaada dadka hawuu gelinaya been ah maadaama uu baraha bulshada yahay hadhowdi ma idinkaa u garnaqaya markii aad baraha bulshada isugu keentaan laba qof waa sax waa runta barnaamijkan horta barnaamijyo kale kasii horeeyay laakiin barnaamijkan hadda guurdoon runtii oo maxay hayto faa'iido badan iyo midho badan dhalay uu dadkii faa'iido bulshada waxba u faa'iideynaya laakiin hadda now waxaan isbedel keenay in website aan u sameynayno barnaamijkii oo qaabkii hore qaab ka duwan runtii aan rabnay inaan sameeyno because website wuxuu sahlinaya inay dadkii anagana waqtigii uu badnaa aan gelin jirnay barnaamijka inuu naga yaraado website wuxuu keenaya in dadku iyagu ay isxulanayaan meesha anagu aan xuli jirnay oo kale marka inta anigu hadhow laga yaabay odhan lahayn oo faa'iido gabadhii aad ugu xidhay ama inankii aad ugu xidhay muu noqon sidan u maleynayo maadaama dadkina aanay ku nooleen intooda badan marka u garnaqaya markii hadhowdi isqabtaan labada qof garnaqada markay noqoto waxa weeyaan guurka sidiisaba markasta dadku si un bay isku bartaan ama aabaha baa kugu daraya ama adigii baa isbaranaya dhibku hadduu yimaadana markasta waxa weeye labada qof un bay u dhaxaysaa marka haddii ay noqoto xitaa garnaq anagu inta ugu horeysa waxaan ku leeyahay 12 months-ka ugu horeeya waan dadkaas waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo luqada Soomaaliga garan maayo kelmadda lagu yiraahdo basically counseling oo kale inaan dadka siino oo kale maadaama dadka isku baranayaan ama qofka laga yaabo Mareykanka joogo gabadhina meel Ingiriiska joogo ugu dambaysa aan ka weydiiyay dadkan abraha bulshada isugu keentaan carruurtana ma la korinaysaan caruurta ma korina because ana kuwayga waa korsanaynaa waa maasanta aad iyo aad maasanta shiine haddii aan adiga ku imaado waxaa jirta mararka qaarkood oo dhaliilo badan baa laydin soo jeediyaa oo la yiraahdaa afkiina iyo bogogiinuba waa kiraysan yihiin oo waxay u kiraysan yihiin ama maamulo gaar ah ama dad gaar ah oo waad ku shaqaysataan inta aad bulshada usoo faa'iido usoo kordhin lahaydeen waxa weeye eedahaasi waa eeda aan waxba ka jirin weeye anigu de markaan anu iska hadlo dad kaleeto war badan kama hayo laakiin qofku markuu baraha bulshada isticmaalayo wixii fikradiisa ah uu soo gudbiyaa dadku markay fikradahaaga iyo waxyaabaha ka hadlayso aysan la dhacsanayn tusaale ahaan oo kale hadday yihiin mid aad dowladda federaalka xukuumadda hadda jirta aad ku taageerayso waxaa laga yaabaa inay markaba ay u qaataan in lacag lagugu soo siiyey marka uma malaynayo inay jirto dad lacag ku qaata iyo cid lacag ku bixisaba anigana ma jirto lacag ku qaatay ilaa iyo hadda hay waa gartay Faiza ayadana aan weydiiyay Faiza baraha bulshada markii guud ahaan la yiraahdo Soomaha meelaha ay fake news ka waxa la yiraahdo wararka oo been abuurka halka ay ku faafaan oo bulshadu si saa'id u qaadato wax aanan sal iyo baar lahayn waxa weyn absolutely waxa weyn horta baraha bulshada waxa weyn waliba gaar ahaan inaga Soomaali hadaan nahay waxa weyn already jahwareer badan iyo dhibaatooyin badan baan soo maray marka qofkii aan aqoon lahayn qof kasta aqoon ma laha qofkii aan aqoon lahayn marka la soo hordhigo sawir khaldan ama news khaldan marka la soo hordhigo dad badan baa rumaysanaya marka waxtaan waxa laga yaabaa in ay keento dhibaato intii hore already ku jirnay mid ka sii daran matalan ba hadday noqoto xagga siyaasadda kale qof baa laga yaabaa inuu soo dhigo soo bandhigo dad matalan ba dhintay oo kale laakiin aanay ahead maybe 2 years ago iyo kale 2 sano ka hor 3 sano ka hor Faiza waxaan weydiinayaa iyada waxay heshay fursad ay barnaamijyadeeda ku soo aragto aniga barnaamijyada ay soo diyaariso fursad uma helin aan soo arko laakiin sida sheegtay waxa jira guur baan ka shaqeeyaa maxaan ku raad dadkaan isu doonaa marka gabdhaha Soomaaliyeed waxa weeye gabdho sharaf la weeye marka Faiza ma gabdho haray dad guur waaye iyo wiilal guur waaye oo fadhiya bay wuxuu raadisaa dadka gabdhuhu iyaga dadka soo jiita oo shaqaan su'aasha Faiza hordhiga mayno su'aal gafa weeyaan mana doonayo inaad ka jawaabto ayadaba haddii aan gabagabada barnaamijka ayaanu ku soo dhownahay waxyaabaha su'aashayna waxa ahayd maxaa halkee u martaan in mas'uuliyadda idinka saaran anshaxa waa maxaa ka saaran adiga markaa baraha bulshada anshaxa waxa ka saaran qofka markuu wax soo gudbinayo sidiisaba horta waxa weeyaan dadka daawanaya waxay garan karaan qofkaas wuxuu soo gudbinayo baa laga fahmi karaa qofkaas inuu yahay wax qof wanaagsan iyo qof kale adigu marka social media isticmaalaysid benefitkeeda u soo gudbi dadka laakiin haddii qofku uu isticmaalo si khaldan inkastoo runtii 80% dad badan oo Soomaaliyeed imika xalay video aan daawaday inkastoo halkan lagu ma soo bandhigi karo wuxuu ahaa runtii very disappointed baa videogaas oo ay dad badan runtii daawaday marka eegsid intaas boqolaal kun daawanayeen Faiza intaan shiino su'aal degdeg aan ku weydiiyo soo lama oran karo dadka baraha bulshada isticmaala ama adeegsada shiino kale ama adigoo kale in ay dadka siiyaan warbixin aanay ka helin meelaha waaweyn sida BBC da ama VOA-da dadka anagana daawado way ka badan yihiin dadka BBC-da daawada ma marka qaar kood marka tagtid view-ga xaqiijin bay u baahan tahay
matalan bas marka qaarkood baan ku leeyahay maxaa keenaysa dadkii oo u horseedaya dadkii intii badneed isticmaalka social media waxay u horseedeen waxyaalo khaldan inay dadkii u soo bandhiga marka dadka Soomaalida ma taqaana way iska fuduul badan waxay leeyihiin halkaas waxaas laga sameeyay sheena su'aasha ugu dambaysa haddii aan ku weydiiyo maxaa faa'iido ah oo aad dadku u soo gudbisaa waxaan u soo gudbinaa dadka de warar saa sheegaysoba xasaasiya oo BBC-da iyo VOA-da iyo idaacadaha kale aysan ku dhiiranayn inay soo gudbiyaan iyo kuwa ay waqti u waayeen oo kaleeto waqti badan baan haysanaa walaashay Faa'iisa waxaan weydiinayaa su'aasha weydiinaya waxa weeye gabdhaha berigii hore marka iyo wiilasha la siinayo sooriyo iyo yarad baa laga qaadan jiray dadka isu hesho sooriyada iyo yaradka meelaha ka qaad intaas oo weydiina su'aalaad fiican baan weydiiyay horta waxa weeye Sooriyada iyo dhalinyarada hadda imka jooga ama dadka hadda iskuursanaya wax badan baa iska bedelay guurkii markii hore inkastoo inagu aan nahay dad muslima marka anagu labada qof markay isfahmaan haday Sooriya ay yani wixii ay ku heshiinayaan haduu inanku ka bixinayaan intii Sooriya familkeedii dadkeeda iskala anagu shaqadeeda ma aad iyo aad ayaa maasantaa Sheena iyo Faiza labadiina waad mahadsantihiin inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caawiya caalamka nabadgelyo Thank you.